If I continue watching this video, I'm going to end up converting to Islam. Andrew Tate, ninkan bilihii dhowaa loogu hadalhaynta badan yahay baraha bulshada, ayaa si rasmi ah u shaaciyay inuu islaamnimada qaatay kadib safar uu ku tagay Dubai si uu u xoojiyo fahamkiisa islaamka sida la wariyay. ninkani waxa uu ku caanbaxay inuu ahaa qofkii ugu horeeyay ee inta ugu badan magaciisa Google-ka laga raadiyay oo markii laga xanimay barihiisii internetka oo loo sababeeyay inuu nacayb dumar iyo wax ka hor imanaya dhaqamada galbeedka ku faafiyay ayaa in ka badan 16 bilyan oo jeer magaciisa Google-ka laga raadiyay. hayeeshee docda inaga soo jiidatay doodihiisa ayaa ahayd inuu marar badan cadeeyay sida uu islaamka ugu arko diinta kaliya ee saxan. bulshooyinka islaamkuna ay yihiin kuwa kaliya ee haysta caqiido toosan oo ku simaysan la kulanka sareeyahooda. ugu dambeyn rabitaankii Andrew ee islaamku waa miro dhalay oo waa kan laftiisu afkiisa ka shaaciyay inuu qaatay diinteena suuban. I'm Muslim now. We are now a Muslim channel. We are changing this to a Muslim channel now. This video has converted me to Islam. I am now Muslim. I want to convert the whole Tate Speech channel Islamic. I'm serious. Make a new banner. Islamic text. We are now a Muslim channel. Pro-Islam. My name is Abu Anzu. Hadda waxaan ahay Muslim. guud ahaan janaladeydana waxaan ka dhigi doonaa kuwo islaami ah. magacaygu hadda waa Abu Andrew. waana muslimay waayo waa u dhamaatay galbeedkii iyo Kirishtankiiba. waxaan sheegnaa ma harin. wuu dhamaaday ka hadalkii kaas. kani waa muuqaalkii ugu horeeyay ee aan tan idinku xaqiijinayo. muslim ayaan ah. I am now officially a Muslim. Watching that video, because this is the first time I've watched it from start to finish. I've seen little clips on Twitter. I watched it from start to finish, and now I have ended up a Muslim. I'm a Muslim, and I hope you men at home are Muslim too. From start to finish. I've seen little clips on Twitter. I watched it from start to finish, and now I have ended up a Muslim. I'm a Muslim, and I hope you men at home are Muslim too. I'm gonna find myself a nice Islamic-ass wife. I'm gonna build up a big pile of rocks in case she gets fresh. I'm gonna be prepared, so I ain't gonna mess around. As soon as I catch her cheating, there's gonna be no delays. Inshallah. Welcome to the new Muslim Tate Speech. dad badan ayaa aaminsan intay talaabadan uga gol leeyahay helidda taageerayaal ama audience cusub oo muslim ah ama uu doonayo mar kale inuu kasbado dareenka bulshooyinka caalamka oo dhan. balse aqoon-yahano muslima oo qayb ahaan la kulmay ayaa xaqiijiyay in ninkani uu muuqdo mid si dhab ah u doonaya qaadashada islaamka. mid kale oo aynu macluumaad buuxa kaga heli doono qaadashada diinta ee ninkan ayaa ah waraysigan oo uu la leeyahay Maxamed Xijaab oo ah Ingiriis Masaari bartay culumta islaamka, kaas oo la filayo inuu ku sharixi doono qisadiisa islaam qaadashada.